Welcome back markale guys, challenge-gan maanta caadi ma aha. Waxa wada Mr Beast waxa uu leeyahay dukaankan qofkii ku dhex noolaan kara maalin walba waxa aan siinay $10,000. wiilkan ay ka qayb qaadan doono lagu magacaabo Alex haddii uu maalin walba ku noolaado dukaankan wuxuu u qaadan doonaa $10,000. ma ka soo bixi doonaa Alex annaga xataa ma ogin, laakiin challenge-gan intuu bilaabo waxaan ka rabnaa inaad subscribe halkaan saartid sababtoo ah si aan u soo badino maalin walba. Alex maalintiis koobaad ayaa u bilaabanaysa wuxuuna ka qayb qaadanayaa challenge-gan wuxuuna isku soo dhexirayaa dukaanka hal habeen kaste uu seexdo wuxuu qaadan doonaa Alex $10,000. waxa meeshan u noqon doontaa gurigiisa oo kale. Alex maalinta uu challenge-gan ku ekeeyaa asagana lacagtiisa maalintaas ayay ku ekaanaysaa. Mr Beast waxa uu keenayaa 10,000 ee maalintiisa ugu horeysay. sidoo kale Mr Beast waxa uu ballan qaadayaa haddii uu 100 maalin xataa challenge-gan ka qayb qaato in uu maalin walba siin doono $10,000. sidoo kale waxaa shuruudda ka mid ah in Alex maalin walba oo $10,000 loo keeno laga gadan doono alaab u dhiganta $10,000 oo dukaankiisa uu ka bixin doono alaab u dhiganta $10,000. Mr Beastna maalin walba waxa uu keenayaa subax walba waxa uu keenayaa $10,000. sidoo kale waxa qaadanaya alaab u dhiganta $10,000. waxaan arkaynaa hadda Alex oo isku diyaarinaya habeenkiisa siduu u seexan lahaa iyo meesha uu seexan lahaa. waxaana la marayaa maalintiisa saddexaad. la soco Alex waxa uu marayaa $30,000. Mr Beast maalinta afraad wuxuu qaadanayaa alaab u dhiganta $10,000. waxa uu ku wareejinayaa $10,000 isla Alex. Mr Beast subax walba waxa uu ku soo dheelmanayaa Alex waxa uu ka qaadan doonaa alaab u dhiganta $10,000. guys challenge-gaani caadi ma ahan, faraha la iskaga guban doonaa. Alex intuu ku xirnaan doono dukaanka waa isla arki doonaa, laakiin marka hore subscribe halkan waa inaad saartid. hadda waxaan arkaynaa Alex oo haysta $40,000. sidoo kale subax walba wuxuu dukaankiisa ka bixinayaa lacag u dhiganta $10,000. Mr Beastna waxa uu siinayaa lacag u dhiganta $10,000. Alex hadda wuxuu samaysanayaa musqul maadaama uu meesha ku dhexireen, wuxuuna go'aan ku gaarayaa inuusan waxba uga baahnayn banaanka. waxa uu samaysanayaa musqul, sidoo kale waxa uu samaysanayaa meel uu wax ku karsado. Alex waxa uu challenge-gan uga soo baxayaa si aan caadi ahayn. Mr Beastna maalin saddexaad wuxuu u keenayaa lacagtiisii. daawadahayga ninka Alex la dhahayo waa nin xariifa. wuxuu sameynayaa marka dambe maadaama maalin walba laga qaadayo waxyaabo qaaliya, waxa uu sameynayaa waxyaabaha raqiista ayuu maalin dambe hormarinayaa si uu gadaal ugu marsado waxyaabaha qaaliga oo Mr Beast markii maalmo badan ay ninkan u harto uusan lacag badan ninkan uga qaado si uu Mr Beast lacag badan uga qaado. maanta wuxuu sameynayaa dharka huudheeda ee dharka yarada raqiiska ee suuqa yaalo intii $10,000 gaaraysa ayuu isku soo aadinaya. Mr Beast waxa uu aadayaa safar yar asaga iyo asxaabtiisa maadaama muuqaalo badan uu ku soo duubayo meelo kala duwan. Mr Beast asxaabtiisa ayaa lacagta u keenayso Alexna waxa lagu leeyahay intuu Mr Beast maqayso wax walba waxa lacagta ku keeni doonto asxaabteena. haddana waxa uu marayaa maalintiisii 10aad. mar dhow waxa uu gaarayaa maalintiisa 12aad, kadibna waxa uu gaari doonaa maalintiisa 13aad. Alexna meesha waxa ay ku noqonaysaa caajis iyo cidlo. wuxuuna bilaabayaa inuu ku cayaaro meesha maadaama ninka Alex uu rajaynayo inuu lacag badan oo ka qaato ninka Mr Beast. maalintiisa 13aad wuxuu isku dayaa inuu dhisto musqul kale oo musqusha ka duwan maadaama meeshii ay faaruq noqotay. waxa uu soo qaadanayaa shalfisyadii iyo alwaaxyadii meesha yaal waa uuna burburinaya, kadibna waxa uu ka samaysanayaa musqul aanan caadi ahayn oo aan hore loo arag. ninkan caadi ma aha, waa fuundi, hadduu rabana waa engineer. marka ninkan Alex wuxuu u soo diyaar garoobay inuu ninkan Mr Beast lacag badan ka qaado oo uu ka disho. kadibna ninkan waxa uu marayaa hadda lacag ku dhow $130,000. marka wuxuu isku dayayaa inuu ka dhisto biyaha caafiga iyo biyaha suuqa yaala inuu ka dhex dhisto meel uu seexdo iyo tiishashkii iyo waxyaabihii oo dhan ayuu isku arko. ninka Alex la cuntadiisu iska karsanaya, wixiisu iska habaysanaya, kama baqasnaba. maalinta kadib wuxuu bilaabayaa inuu u xisaabiyo Mr Beast xisaabtii uu ku lahaa. Mr Beast waxa uu keenayaa lacagta maadaama safarkii uu ka soo laabtay $10,000 ayuu keenayaa. Alexna waa kana jawigiisa iska degan. kadibna waxay dhahayaan waxa laga duminayaa qayb supermarket-ka si ninkan uu u baxo oo challenge u adkaado. waxa la dhahayaa iridda hordhana laga duminayaa. ninkan Alex la lahaa waa nin baahan lacaga u cad waxaas ama dumi ama iska dhaaf aday ku taala. maalin dambena wuxuu sameynayaa qaybihii hore dukaanka ayuu u adeegay Mr Beast oo wuxuu u aruurinayaa alaab $10,000 gaaraysa. kadibna Mr Beast iyo saaxiibadiis waa uu ku wareejinayaa lacagta, xataa biyihii ninkan uu guriga ka dhistay iyo joorarkiisa uu bedelayaa mid kale oo cusub ayuu samaysanayaa. waxaana la gaarayaa maalin kale oo cusub. Mr Beastna waxa uu leeyahay ninka Alex caadi ma ahan ee lacagtiisa lagu wareejiyo.
Alakis marka dambe go'aan wuxuu uu ku gaarayaa caajiskii iyo waxyaabihii inta ka bataan lacag ku dhowne $100,000 ayuu haystaa waxa uuna sameynayaa markaan caajiskii iyo waxyaabihii inta ka bateen waxa uu leeyahay hartu meeshan kama baxaayo anoo aanan gaarin 200 ama 400 ama 500 ama milyan maadaama ninkan uu rajaynayo qoyskiisa iyo ilmihiisa in uu horumar gaarsiiyo oo uu shiid yahay waxa uu sameynayaa in uu challenge-gan ilaa inta uu gaarsiin karo uu gaarsiiyo lacagtiina maalin walba uu ka qaadanaya wuuna u adeegaya oo wuxuu siinayaa waxyaabo cusub waxaana la gaarayaa maalintii 28aad Alakis wax uu qabtay inta waayo ayuu wuxuu sameynayaa in uu meeshii ku falaado oo uu ku baashaalo oo maalin walba qayb u guuro ayuu bilaabayaa maalinta dambana wax uu bilaabayaa in uu jajabiyo iskafaalooyinkii ama shelfiskii dhammaan si uu ninkan u dareemo daal kadibna uu habeenkii hurdo u helo maadaama ninkan suu meesha isugu dhex jiray uu iska noqday nin caajis iyo maxaa la dhahaa cidlo iyo wax walbo marka Mr Beast ayaa la yaabaya waxa uu leeyahay ninkan waxa uu sameynayaa surprise oo waxa uu keenayaa familkiisa xaaskiisa qoyskiisa kadibna caruurtiisa iyo xaaskiisa ayaa loo keenayaa Alakis asaga oo iska murugaysan oo cidlo iska heeso laakiin aanan ogoleen inuu challenge ka baxo aad ayuu u farxayaa markuu arko xaaskiisa uu soo istaagaya caruurtiisa uu shuminaya hab uu siinaya sidoo kale wuxuu sameynayaa xaaskiisa ayuu laabta gelinayaa hab ayuu siinaya ninkan Alakis la dhahay go'aan waxa uu ku gaaray in uu wax uu lacagtaas ku qaadan karo oo ku qaato caruurtiisa ayuu la baashaalay wuxuu tusayaa waxyaabihii uu dhisay iyo meelihii uu ku falaaday caruurtiisana aad ayay la farxayaan maadaama aabahood 29 maalin uu ka maqan yahay wuxuuna tusayaa meeshii uu seexanayay iyo meeshii uu ku baashaalayay caruurtiisa ayuuna cabaar waqti la qaadanaya Alakis kadibna waxa la gaaraya waqtiga laga wadi lahaa xaaskiisana waa laga wadayaa oo waxa soo haraya asaga oo kaliya ninkan meeshii ayuu caajiska bilaabay wuxuuna sax xasuusanayaa caruurtiisa iyo quruxdii iyo waqtiga uu la qaatay markaana waxa uu noqonayaa nin aad u murugaysan sidii qof waalan oo kale korontadan waa laga dansanaya Mr Beast wuxuu leeyahay markaan ninkan waa ina korontada ka damiyaa si uu u baxo maxaa yeelay ninka hadii aan korontada ka damin maalin walba lacagtu waa iga dhamaanaysaa ninkan nin fikir badan oo maskax badan waa maalin walba oo wax lagu sameeyo wax uu sameeynaya wax cusub oo aan caadi ahayn marka Mr Beast wuxuu leeyahay waxaan aadi doonaa safar korontadana waa ka daminaynaa Mr Beast waxa uu isku dayaa inuu safar cusub uu aado maadaama maalin walba muuqaalo kale oo dhinac ka duubo waxaana laga qaadayaa alaabtii ugu dambeysay asagana waxaana siinayaa lacagtii Mr Beastna alaabtooda ay qaadanayaan Mr Beastna wuxuu aadayaa Africa kadibna wuxuu soo sameeynaa halkaas wuxuu rabaa inuu muuqaalo kale uu ku soo sameeyo ninkan Alakis waxa mar walba lacagta ka qaadaya Mr Beast saaxiibkiis asagana wuxuu aruurinayaa alaabtii wuxuuna isku dayaa inuu ka iibiyo dukaankiina inta ay alaab taalo inuu ninkaas challenge-gan uusan ka bixin ayuu isku dayaa sidoo kale ninkan engineer waayo wuxuu isku dayaa inuu waxyaabo qalab iyo waxyaabo isku xirxiro oo nalal iyo waxyaabo ka sameesto laakiin markaan waxay u muuqataa inuu aad u murugaysan yahay wuxuu sameeynaya xataa wuxuu isku dayaa inuu meesha gubo wuxuu sameeynaya inuu jajabiyo ninkani Alakis la dhahayo wax uu go'aan ku gaaray inuusan meeshan ka bixin dhalooyinka xataa inta qaada ninkan uu darbiyada ku garaacaya ninkani nin waji leh ma ahan Alakis la yiraahdaa Alakis ugu dambeyntu waxa isku dayayaa inuu fikrad cusub keeno ama iftiin uu raadsado ama albaab dambe oo ku yaala daaqad dambe oo meeshaas ku taala inuu iska ifsado maxaa yeelay meeshan sharci ayaa leedahay waxa dukaanka ku hareeraysan leen guduud ah leenkaas hadii uu taabto ama Alakis kabtiisa ay taabato wuu ka bax ciyaarto oo lacagtaas inta uu haysto oo kaliya ayuu qaadanaya ninka Alakis markii dambe wuxuu sameynayaa farsamo maadaama ninka Mr Beast wax walba uu ka rabo alaab $10,000 gaarayso si uu meesha u ifsado ninka wuxuu raadsanayaa iftiin si ay noqoto mar wuxuu ifsanayaa daaqada murugo badan ayuu dareemayaa cidla badan ayuu dareemayaa saas oo tahana mar walba uu ka fikirayaa ninkan qoyskiisa iyo familkiisa si ay ku taajir lahayn ninka Alakis la nin waji leh ma ahan Alakis ugu dambeyntu waxa uu isku dayayaa inuu iftiin sameesto oo wax uu raadinayaa meel uu iftiin ka sameesto sidoo kale wax uu raadinayaa maxaa la yiraahdaa waxyaabo uu iftiin ka heli karo maadaama ninka maskaxdiisa aysan caadi ahayn Alakis ugu dambeyntii waxa uu helayaa waxyaabo laga sameeyo ama nalalka suuqa ay la gado ee suuqa dhex yaalo uu isku xirxirayaa bateriyaal yar ay ku shaqeynayaan bilaa koronto ay shaqeynayaan ninka Alakis ahaa wuu isku xirxiraya waxaana la marayaa maalintii 4aad ayaa la marayaa ninka Alakis waxa uu shaqeystaa lacag aan caadi ahayn sababtoo ah wax walba waxa uu qaadanaya $10,000 ninka Alakis waxa uu imaanaya Mr Beast saaxiibkiisa suuqii oo dhanna waa uu dhameeyay waa ay jijibinayaan qaybtii hartay ninka Alakis waa la yaaban yahay ragaan waxa ay sameynayaan asagana waxa uu siinayaa alaab $10,000 gaarto ninkan mar walba ay wax jijibiyaan waxa uu sameynayaa asagana inuu wax cusub sameysto markaana waxa uu sameysanayaa pool biyo weyn ku jiraan wuxuu isku dayaa inuu
ku dabaasho wuxuu isku dayay inuu waqti ku qaato ninkii Mr Beast aan safarka ayuu kasoo laabtay oo surprise ayuu uga dhigayaa lacagtiisina waa loo keenayaa markaan ninkan Mr Beastna wuxuu arkaya ninkan inuu isxaliyo oo pool iyo baraakad iyo wax weyn uu sameystay Mr Beast asxaabtiisana waxay sameynayaan waqti ay kula qaadanayaan oo kula dabaalanayaan oo meeshii ay cabaar kula baashaalayaan ninka alakisa asagana kama qasno oo wuxuu iskaga baashaalaya poolkiisa lacagtiisana uu iska qaadanaya laakiin waxa laga dareemaya murugo aad u fara badan iyo cid aad u fara badan Mr Beast wuxuu leeyahay hadda diyaar u tahay challenge-gan inaad ka baxdid anigana lacagtan inta aad haysatid waa ku siinaya laakiin ninkan waa uu diidaya oo wuxuu iska raacaya gaarigiisii meesha ay uga dhex tageen gaariga markad ma asagoo iskaga falaadaya waxa gacanta uga dhacaysa ninka odayga ah maxaa la dhahaa poolkii kadibna poolkii ayaa ka dilaacaya ninka odayga poolka markuu ka dilaaco meeshii oo dhan biyo ayaa ku fardaa meesha dhan biyo ayaa ku daadanaya ninkana waxa uu ka gaaraya lacagtiisa maadaama oo lacagtaas intaasoo maalin u shaqeynayay oo ku rafaadayay wuxuu arkaya lacagtii oo biyo galeen laakiin lacagtii biyo ma taabanayso ninkan lacagtiisa wuu ilaashanaya kadibna waxa uu sameynayaa murugo aad u fara badan iyo maalmo aad u fara badan markii uu joogo Mr Beast waxa uu leeyahay maalin walba ninkan niyo challenge-gan ma ka baxaysa oo lacagtan ma iska dhaafaysa laakiin ninkan alakisa lahaa gartaasi ma gasho maalin walba wuxuu leeyahay alaabtiin waad kana diyaar waaye 10,000 isoo bara oo 10,000 isiya ninka Mr Beast yaa ninka odayga 10,000 maalin walba siinaya ninkan nin caadi ma ahan alakis ugu dambeyntii Alakis waxa uu ekaanayaa qof murugaysan ama qof waalan ama qof xabsi lagu xiray oo kale xataa heer wuxuu gaarayaa inuu isla hadlo ninkii Alakis ahaa laakiin saasoo wuxuu leeyahay aniga waxaan ka soo tagay caruur iyo xaas baahan lacagtan waa iga go'an tahay inaan ku guuleysto xataa ninka rajadiisa waxay tahay inuu milyan gaarsiiyo subaxii dambe waxa uu soo galaysa lacagtiisii oo gaari ku socota oo kaamirad ku xiran tahay oo cidna aysan la socon ninka Alakis wuu la yaabayaa wuxuu leeyahay Mr Beast adiga ku aawa maxaa dhacay lacagta kaligeeda isoo horumarinaysid laakiin saasoo tahay mar walba ninkan waxa laga rabaa alaab 10,000 u dhigmata lacagtiisa oo iska xareysanaya ninkan wuxuu isku dayayaa inuu murugada is ilowsiiyo hurdo isku boojeeyo waqti walbana waxa uu ku madadaalo karo uu sameeyo laakiin ninkan waxa ka go'an in uu lacagtaasi ku guuleysto marka dambana waxa uu sameynayaa inuu iska baashaalo oo gaariyaasha yararka iyo meesha yaalo iyo uu iskaga baashaalo Mr Beast markaan wuxuu dhahay waxa markaan uu sameynayaa surprise kale oo waxaan u keenayaa xaaskiisa maadaama ninkan ay ka muuqato murugo aad u fara badan haddii ninkan murugadan uu ku sii jirana laga yaabay inuu waasho ama inay wax gaaraan sidoo kalena waxa la leeyahay challenge-ga ma ka baxaysa markalena waa uu diidaya Mr Beast waxa uu leeyahay markaan waxa ku sameynayaa surprise kale surprise-kan caadi ma ahan waa xaaskaaga la leeyahay ninka xaaskiisa loo keenaya markale uu farxaya niyada u dagayso wax uu tusaya xaaskiisa lacagihii iyo waxyaabihii uu shaqeystay 40kii maalin meesha ku jiray Mr Beast uu la yaabaya wuxuu dhahaa ninkan caadi ma ahan waa nin adag waxa la gaarayaa maalintii 45aad ninkan go'aan ayuu gaarayaa in uu baxo laakiin ogow hadii leenka xariiqinta guduuda oo lugta saara ciyaarta meeshas ay ku soo dhamaato oo ninkan ciyaartaas waa uu ka baxay wuuna taabtay wuuna ka baxay sidaas ayuu ku guuleystay waxa uu qaadanaya lacag gaaraysa 450,000 oo dollar ninkan Alakis lahaa challenge uu ka soo baxay Mr Beast salaan ayuu u saaraya fadlan hadii aad meeshan ku cusub tahay si aan mar walba muuqaal la mid aan u soo badino subscribe-ta noo taabo hanaga ilaabin like-ta comment-iga soo dhawaada aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin